بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan rabaa in idin la wadaago dadka qaar ayaa laga yaabaa in muxuu aad ugu shaqlan yihiin adduunyada iyo muxuu ahaa sida shilin ugu dari lahaa uu moodayo muxuu ahaa shilimaad fara badan markii la helo oo muxuu ahaa qof aad maal qabeen noqotid ee hanti fara badan aad hesho in hodantinimada dhabta dad yaa saamooda. marka waxaan rabaa in xadiiskii nabiga la wadaago calayhi salaatu wasalaam, xadiiskaas oo ka hadlaya hodantinimada dhabta ah ee xaqiiqiga ah iyo xadiiska inooga hadli doonaa. waxaan rabaa markii aan ka daawoono oo runtii xanuunka inagu dhacay ee aan moodayno qofka markuuna waxba uunan haysanin ee maal uusan lahayn uu ismooday inuu qof dhintay oo baqtiyay oo aan loo baahnayn inuu ismoodayo taayada ma aha. dadka wax haysto ee iyagana xoolaha Ilaahay uu siiyana iyagana hodantinimada xaqiiqiga dhabta iyaga kuwa maalka haysta ma aha. waa maxay hodantinimada dhabta ee xaqiiqiga yaan rabaa inaan dhamaantiin dala wadaago anigoo xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam runtii raba inaan idin la wadaago calayhi salaatu wasalaam. nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam isagoo arrinka ka hadlay wuxuu leeyahay nabiga laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. xadiiskaas oo saxiix ah oo Bukhari Muslim isku waafaqeen. nabiga wuxuu kaga hadlay calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu leeyahay hodantinimada dhabta ah ma aha maal badni qofka inuu maal fara badan iyo xoolo badan uu leeyahay ma aha hodantinimada dhabta ah ee xaqiiqiga ah. hodantinimada dhabta ah ee xaqiiqiga nabiga wuxuu ku tilmaamay qofka inuu leeyahay qalbi qanacsan qanaaca inuu leeyahay qofka waa muhiim inuu qofku yahay qof qanacsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax uu siiyay ku qanacsan muxuu ahaa qanaaca qabo taa ayaa hodantinimada dhabta ah. marka hodantinimada dhabta ah waa qofka inuu qalbigu hodan uu ka yahay oo qof hodan uu yahay taa ayaa hodantinimo ah. ma aha qofka xoolaha fara badan Ilaahay siiyay ee hanti fara badan haysta ee hodan aan aniga moodayno yani taa ayaa hodantinimadii xaqiiqiga ahayd maaha. tan waan ka hadlayn waa tii xaqiiqiga ahayd. marka qofka muslimka waxa la rabaa haduuna wax la'aan ay hayso wax la'aanta dhabta ah ma muxuu ahaa waa marka qofka qalbigu ka dhinsan yahay oo aan qanaaco qabin. saa darteed imaamuna ash-Shaafi'i rahimahullah yaa wuxuu yiri idha ma kunta dha qalbin qanuu'in fa anta wa maliku ad-dunya sawa. wuxuu leeyahay imaam ash-Shaafi'i rahimahullah hadii aad leedahay qalbi qanacsan oo qalbiga qanaaco leeyahay oo aad qof qanacsan qalbigiisa uu degan yahay qanaaco qab hadaa tahay adigii qofka adduunyada milkiyo idil waa isku mid ayaa tihiin dad siman u baad adduunyada u tihiin. marka walaalayaal waxa la rabaa qofka inuu qanaaco uu leeyahay oo qalbigiisa uu qanacsan yahay markaas uu qofku dhargaaya. laakiin mar hadii muxuu aadan qanaaco qabin oo aad marba halac uu kugu shidan yahay ee is leedahay waxa adduunka muxuu ahaa badda oo loo galay ee loo tahriibay ee loo qarribmay ee wax loo dilay maal aad heshid hodan aad noqotid taayada ma aha. hodantinimada dhabta xaqiiqiga walaalayaal waa mid qalbiga ah. marka inuu qofka qalbigu hodan uu ka yahay taasoo ku dhargi karaa taasoo deganaan uu ka heli karaa taasoo xasilooni ku heli karaa taasoo adduunyadan muxuu ahaa uu ku ogaan karaa adduunyada inay tahay wax muxuu ahaa iska yaro maalmo kooban oo muxuu ahaa iska kooban inay tahay. marka waxa la rabaa intaad ku nooshaa inaad stress u noolaato oo hadaad wax weeydaad fikirka iyo mushkilada kugu furo lama baahan walaal. waxa muhiim inaad leedahay qanaaco qof qanaaco leh inaad tahay oo muhiim oo iimaan leh oo waxa Ilaahay si ku qanacsan alxamdulillah dhahaya Ilaahay ku aqoonsanay sidaas muhiim. laakiin wax la'aanta darteed aan waxala darteed wado walba oo falxuma hadaad u martid taayada waa ayaan daro mana noqonaysa hadaad wax ku hesho hodantinimo dhab ah ma noqonaysa. marka dhamaantiin waxaan idin rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ina siiyo qalbi qanacsan. wajazaakumullahu khayr. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.